السلام عليكم صاحبتك waxaan ka nalkiga ayuu foster ku soo dhawaada maanta waxaan rabaa inaan tuso sida loo soo dejiyaa WinRAR waliba ah 64 bit soo hada waxaan ognahay in WinRAR-ku uu leeyahay faa'iido aad u fara badan sida in uu fayliska ka ilaaliyo in barnaamijka aad ka dhigto ama program aad ka dhigto zip soo hada waxaan rabaa inaan soo dejino aan ku shubno computerka aan isla socono aan bilowno practical waxaan tagaynaa halkan waxaan ku qoraynaa WinRAR 64 free download kadib waxaan tagaynaa halkan ay ku qoran tahay WinRAR download free and support download waxaan ka tagaynaa website-kan oo asiga uu leeyahay WinRAR-ka oo soo saartay shirkadda la dhahay WinRAR waxaan tagaynaa halkan kadib waxaan leenahay download kadib waxaan leenahay continue to download WinRAR automatically wuxuu weydiinayaa position-ka aad rabto in lagu soo dhigo WinRAR-ka waxaan leenahay noo dhig halkan kadib waxaan leenahay save automatically hadda wuu download gareeyay maxaa yeelay MB-giisu aad ayuu u yaryahay kadib waxaan leenahay folder-kan ayaan furaynaa waad ujeedaa isla markii waxa uu dhameeyay WinRAR-kii waana uu soo dejiyay yes kadib waxaan leenahay install automatically hadda waxaan ku shubnay computerka waad ujeedaa WinRAR-ka qaabkaas ayaa lagu shubtaa qaabkaas ayaa la soo dejistaa soo haddaba ka faa'iidaysi wacan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته